sidii aad la socoteenba muddo 4 maalmood ah halkan Djibouti ka socday shir ama shirar la isugu keenay labada dawladood ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya shirkaas waxa casuumadiisa lahaa oo isugu yeeray oo labada dal keenay iyo dalal badan oo ku weheliya mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo dawladdiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti iyo dawladdiisa ayaa isugu yeeray 4 maalmood baana shir xoogan oo aad loogu dooday oo aad ay ku wada hadlayaan labada dal la isugu keenay waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadaalka xoogga leh ee uu sameeyay mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo dawladdiisa oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti waxaan kaloo u mahadnaqayaa asxaabta saaxiibada kale iyo dalalka kale ee ka soo qayb galay ee soo xoojiyay sidii uu madhali lahaa shirkaas ama kulankaas la isugu keenay labada dal shirkii ka dhacay Djibouti shir loo baahan yahay buu ahaa aan filayo in tallaabo horumara lagaga gaadhay sidii labada dal arrimaha dhex yeelay ay uga wada hadli lahaayeen shir xoogan buu ahaa aad loogu dooday aad laysu tusaaleeyey qaybtiisan hore iyo marxaladdan uu iminka marayo waxaa xoogga lagu saaray sidii ay u dhalan lahayd kalsooni oo looga gudbi lahaa kalsoonidii dhimatay iyo kala fogaanshihii iyo isfaham la'aantii hore u jirtay sidaa la ogyahay waxaa jiray shirar arrintaas labada dal la isugu keenay oo lagu wada hadalsiinayey oo muddo badan soo taxnaa shirarkaa arrimo badan baa lagaga wada hadlay arrimo go'aano iyo heshiise laga gaadhayna waa jireen laakiin nasiib darro wax alaaliya waxa ka fulay ma jirin intooda badan taasuna waxay abuurtay oo ay abuurtay kalsooni darro iyo in dib loo wada hadli kari waayo ama la isugu imaan waayo alxamdulilah shirka kan waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu ka dhigo kii mataqaanaa wadcigaas isku bedeli lahaa markaa aad iyo aad baan u filayaa inuu waxtar u lahaa waxaa 4 maalmood oo u dambeysay 4 maalmood laga wada hadlayay sidii kalsooni loo abuuri lahaa horta intaan arrimaha waaweyn ee masiiriga ah laga hadlin waxay noqotay si la isu aamino in laga wada hadlo is-aaminaadii wixii la isku aamini lahaa waxaa ahmiyadda la saaray oo xoogga la saaray arrimihii shirarkii hore lagaga heshiiyey ee socon waayey oo hirgeli waayey arrimaha oo anigu aan wax kala uga jeedin intooda badan inay meel mari waayaan ay sabab u ahayd Soomaaliya oo ka warwareegtay ama ka cagajiiday in laga wada hadlo arrimaha ama sidii loogu heshiiyey loo fuliyey dabcan shirarkan doodu way adkayd aaraa badan oo meelo badan oo aaraada lagu kala duwan yahay baa jiray waxa dhacaysa mararka qaarkood in la isku kululaado ama
ayba mataqaanaa ay isku yaraa maxay too lagu meelaha qaarkood mararka qaarkood lagu kala boodo laakiin haddana alxamdulilah waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha shirka oo aada ugu dadaalay sidii isugu soo dhoweyn lahaa sidii la isugu soo noqon lahaa sidii dib loogu wada fadhiisan lahaa iyo sidii arrimaha halkaa looga gudbi lahaa meel wanaagsan baa la soo gaadhay sidaa uu idiin sheegayna oo u akhriyey guddoomiyuhuna arrimaha saasaa lagu soo gebagabeeyey iyadoo ay tahay marka kalsoonida arrimahaasu ay dhammaadaan arrimaha kalsoonida lagu abuurayo in looga gudbo arrimihii masiiriga ahaa ee aakhirka lagu soo gebagabeyn lahaa soomaaliya iyo somalilan wixii xidhiidhkoodu uu ku dambayn lahaa mar labaad waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa dowladda jabuuti waxaanu kaloo u mahadnaqaynaa madaxdaa la tiriyey ee ka soo qayb galay ee soo xoojiyey ee soo jaaburay shirka kan iyo midho dhalkiisa waxaanu aada iyo aada si gaara ugu mahadnaqaynaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti oo si madaalnimo ah shirka kan u hoggaamiyey si khibrad weyne ku dheehan tahay si dadaal badan iyo walaalnimo ay ku dheehan tahay uga shaqeeyey dhinac waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan ka soo qaybgalayaashii dhinaca soomaaliya iyo dhinaca somalilandba waxaan u mahadnaqayaa dalalka iyo hay-adaha ka soo qayb qaatay dowladda maraykanka oo iminka halka nagala fadhiyo safiirkeedii jabuuti dhinacayga bidixda oo uu fadhiyo qaybsanihii arrimaha eu-da isna halkan fadhiya ayaan u mahadnaqayaa oo dadaal weyn iyaga qudhadkoodu behind the scene ama xagga dambe hawsha ka abaabulayey oo ka xoojinayey si ay u madho dhasho oo u guulaysato sidaasaan ku soo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu